kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa sii dheeraysatay hoggaanka horyaalka Premier League waxayna 10 ciyaaryahan ee kooxda Tottenham ay ku qaraacday 3-0. waxaan arkaynaa Arsenal sanadkan u socota inay ku guulaysato horyaalka. Arsenal sanadkan waxa laga qaban karin, Arsenal sanadkan aan la xaqiri karin ayaan ku aragnay garoonka Emirates ay ku wada dheelayeen kooxda kubadda cagta Arsenal iyo kooxda Tottenham. marka saaxiibayaal kulankan waxa uu ahaa kulan derbi ah oo aad iyo aad wax xamaasad badnaa, wuxuuna ka mid yahay kulamada isbuucan wax xamaasad badan horyaalka Premier League. waxaana lagu hayay isha Arsenal ma guulaysan doontaa. Arsenal haddii ay guulaystana waxaa laga fiiriyay saansaan cusub ay horyaalka kula tagi doonto, maadaama sanadkan ay la soo baxday awood dheeriya kooxdii aad taqaanay Arsenal. waa kooxdii aad taqaanay Arsenal lahayd sanadkan wax lagama qaban karo saaxiibayaal. kulanka Tottenham iyo Arsenalna waxa uu ahaa mar walba kooxda Arsenal kulan imaam waxa uu ahaa mar walba kulan ay hogaaminayso ama maamulayso Arsenal kulankan waxay ka dhigtay naadir ay gool dheeriya. Arsenal waxa ognahay inay goolka hore uu dhishay Thomas waa khad dhexe, waa nin laacib ah, waa nin madow ah oo aad iyo aad boonigiisa u fiican yahay, raacashadiisa meel walbana ka dhisan. halka goolka qura ee madiga ay dhalisay kooxda Tottenham uu rigooro ah una dhalisay laacibka lagu magacaabo Harry Kane. marka saaxiibayaal waxaa moodaa Arsenal inay sanadkan meel u socoto. Arsenal hore Arsenal maahan. marka Arsenal sanadkan u qarantay inay horyaalka qaado. Arsenal anoo la sheega waxaan ku inay Arsenal jaab cusub ay maraysaa. jaabadii koobaad waa gool dareysata oo waatii u dhashay watay la dhashay Manchester United, waa laga soo badiyay goolasha ugu badisay Manchester United ay maanta wax u badisay kooxda Tottenham. marka Arsenal sanadkan caadi ma ahan, wax caadi ma ahan. Arsenal awood leh ayaan ku aragnaa horyaalka Premier League saaxiibayaal. 3-1 ay daday kooxda uu hogaamiyo ilaa tabri hore ee Chelsea Antonio Conte. tabri hore ee Chelsea Antonio Conte 3-1 ay direen. marka sanadkan Arsenal waxa laga qaban karo. Arsenal ka doonta hore Arsenal Shaq golanayo, Jess golanayo, Thomas golanayo, khadka dhexe daafaca garabka neemaha meel walba waa wuxuu dhalinayaa gool. waa koox macnaha diyaarsan waaye sanadkanna shakil aan waaye. Arsenal waxay ku jirtaa afarta ugu sareysa horyaalka Premier League. Arsenal sanadkan ka shakinin, Arsenal sanadkan ka shin murqaweynta horyaalka Premier League. Arsenal way sanadkan kooban baxayso. Arsenal waa isku toosto. Arsenal sidii hore ma ahan. marka Arsenal wala ka shakiyin. Arsenal aad taqaanay Arsenal hada joogta waxa u dhaxeeya large difference baa u dhaxeeya. marka Arsenal waa soo guuleysatay jaabadii labaad ee ka mid ah horyaalka Premier League. labadii naadi ugu horeysay waxa ay midna ka badisay midna ka badiyay. marka waxa weeye marna waxa laga qaatay marna ayaa qaatay weeye. marka naadiga lama saadaalin karo weeye. Arsenal hoggaanka horyaalkana way sii dheeraysatay. haddii biri Manchester City lagu dhigo Arsenal horyaalka sanadkan sida looga farmaajiyo aad u adkaanaysaa. waxay noqonaysaa Arsenal in ay macnaha ay dhibaato ay soo wajahdo ay dhawac gasho weeye. laakiin ciyaaryahanada hadda u jooga Arsenal haddii ay u sii joogaan ilaa dhamaadka horyaalka Premier League sanadkan horyaalka halkaas Emirates uu galbanaya. marka Arsenal shawri ma ahan. Arsenal aan inaba caadi ahayn baa u soo baxday sanadkan horyaalka Premier League. marka Arsenal sanadkan waxa ay ku fiican tahay dhinaca weerarka. waxay moodaysaa in goolinta iyo marka ay weerar soo tagaan waxa moodaysaa ay goorshay u gaaraan ama shaqay u gaaraan ay aad u fududahay. waxaan ognahay gool ku dhashay Gabriel Jesus waxa uu boortaha uu isku khalday boonigaas, laakiin waxa ka faa'iideystay laacibka ninka ugu ciyaara kooxda Arsenal ee Gabriel Jesus. marka saaxiibayaal dhiiranaanta Arsenal kalsoonida Arsenal macnaha xooga Arsenal, weerarka Arsenal, daafacashada Arsenal, raacashada Arsenal sanadkan meel ay u socdaan saaxiibayaal. Arsenal sanadkan meel ay u socotaa. taas iyo qor ha ka shakiin Arsenal haddii lagu dhaho been hamoodin. Arsenal ha ka shakiin been hamoodin. Arsenal micna ku fadhida
been hamoodin habeensan Arsenal xoog badan habeensan Arsenal murqa weyn ah habeensan Arsenal wax qaraacaysa habeensan haddii lagu dhaho Arsenal sanadkan horyaalka waa qaaday habeensan Arsenal macnaha awoodda ay leeyahay Arsenal awoodda ay leedahay kooxda Tottenham oo jacburka ayadoo macnaha Manchester City ku dhibi jiray macnaha counter attack lama hayo walaalkaygiyo lama hayo walaalkaygiyo Arsenal sanadkan cid looma hayo Arsenal haddii Chelsea Liverpool Manchester City ay laba kamid ah dhagaha ku dhufato hore waa qaadaysaa iga qortaas horyaalka haddii ay Arsenal afarta Chelsea Liverpool iyo Manchester City haddii laba kamid ah dhagaha ku dhufato horyaalka Arsenal waa qaad iyo qorbaan ku Arsenal sababtoo Arsenal ciyaal xun ma horisay kana sanadkan Gabriel Jesus boona ka xaqaadeen daafac iyo boortaha dhaxooda ayaa jooga Shaka oo aan cidna u tireen baa jooga halkiiyo cidna u tirimaayo cidna ma yaqaan Shaka cidna ma yaqaan halkiiyo waxa jooga laacibka daayir ah oo Saka la dhahayo oo soo jiidaya booniga ku xariiqaya ayaa jooga saaxiibkiiyo marka Arsenal horyaalka waa qaaday haddii aad ka maqashay idaacadaha BBC-da iyo ka maqashay VOA-da habeensan walaalkiiyo haddaa ka maqashin page-keenan habeensan Arsenal fans waxaan dhahaynaa guul hambalyo ayaan dhahaynaa Arsenal fans maadaama ay dhashay booni qurux badan booni taaka ah booni ku saleysan awood anaa ka awood badan oo cada anaa ka awood badan ayaasna maantiri macnaha Tottenham ku leedahay anaa ka awood badan hadda Arsenal waa Arsenal waxa wana 2014 waxa ka soo dhigtay horyaalka Premier League sanadkan waa sidoo kale sanadkan Marseille la geeyo bismillaahir rahmaanir rahiim dhowr iyo 20 sano ka soo reegtay marka saaxiibayaal wararkeena kulanka Tottenham iyo Arsenal intaas ayaan ku soo gabeynaa saaxiibayaal haddii aad tahay saaxiib ku cusub barteena subscribe noo saar haddii kalena leegtay sheerta nagu sii dhiirigeli wixii wara ay ku soo kordha ciyaaraha halkan ayaa kala socon doontaa saaxiib yuuna ku dhaafin wararkeena mar walba aan ku soo geyno barteenan waana ku mahadsantahay saaxiib la jaanqaadkaaga